dadweynaheena qaaliga ah iyo dadka kale ee nala nool waxa aan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxa aan hadalka u qaatay maantana mar labaad waxa weeye dhibaatooyinka caabuqaasi coronavirus la yiraahdo oo ku hayo adduunka oo nagu soo durkaya dharaartii horena waa sheegnay maantana waan ku celinaynaa maca al-asaf shadiid waxa aan la kulannay laba qof oo qaba cudurkaasi labada qof waa sahala weeyaan haddana oo ayagana dawladdu ama wasaaradda caafimaadku gacantay ku haysaa kolka waxaade waad garanaysaan oo qof qaba cudurkaasi reerkiisa hareerihiisa asxaabtiisa intaba u gaarsiinaya maalin qurahatay inuu 20 iyo 30 wax ka badan u tabin karaya dhibaataduna halka ay ka socoto halkaas weey waxa aan qaadnay tallaabooyin si aan u badbaadino dadkeena tallaabooyinkaasi waa nagi iskuulada xidhnay waa nagi masaajida niri hal iska ilaaliyo waa nagi niri socodka hal joojiyo waxa se muuqata inay dadkeeni wali aanay dareemeyn ama aanay moodeynin waxani wax halis ay moodeynin 300,000 oo qof ama 500,000 oo qof wax ka badan ayuu hayaa cudurkaas waxa ay soo gaareen dhimashadii kumaankum way soo gaadhay wadana badani sida ay yaani ilaa ay bando keenan way ka joogsani way baalkii socodkiisii oo dadkii oo dhan uu ku fiday anagu markaasi inaan hurudno oo aan dayalsano maaha mas'uuliyadeyduna aniga waxa weeyaan in aan dadka aan ku khasbo haddii loo baahdo in ay cudurkaasi aan iska wada ilaalino dadku isku dhaxnool yahay wadanku wadan yar weeyaan dhibaatooyin fara badan ayaan ka baqaynaa walka waxaan haddana garanay imika inaan dawladda shaqaalaheega aan fasaxno 7 maalmood kolka laga reebo qolada biyaha ka shaqeysa kuwa kooraanka ka shaqeeya kuwa boorka ka shaqeeya kuwa booliiska ah iyo armeega ah iyo caafimaadka intaas in aan siino 7 maalmood inay inta mooyaane inta kale oo dhan inay iyo waxaan iloobay maxaa la yiraahdaa ragga cashuuraadka ee duwaanka ayaan iloobay inta marka la isku daro inta maayna inta kale oo dhani inay fadhido guryahooga dadka oo dhanina waxaan jecelnahay inta maahina inaanay guryahooga ku ekaadaan kaligood ku noolaadaan oo socod iyo waxaas la joojiyo wax daruuri ah mooyaane hal la joojiyo waan leenahay waan ku celinayaa mar labaad